kuwani waa bulshada Roma lagu magacaabo ee ka tirsan shacabka Bulgaria. sidoo kale dadka Bulgaariyiintu waxa ay ku naanaysaan qowmiyadda Gajarka. waa bulsho si uga go'doonsan shacabka Bulgaria intiisa kale. warbixintan waxa aynu ku eegaynaa suuqa lagu iibiyo gabdhaha guurdoonka ah ee dalka Bulgaria, halkaas oo gabdhaha la keeno sanad kasta si loo iibiyo. qiimaha gabdhaha la kala siinayo waxa jaangooya qoysaskooda. laakiin marka hore aanu yara milicsano yihiin qowmiyadda Gajar ama Roma ee ku nool Bulgaria. bulshada Roma ama Gajarka tiradoodu waa 8 milyan oo qof qiyaas ahaan, kuwaasi oo ku kala firirsan wadamo badan oo caalamka ah. badankood waa dad reer miyi ah. waxaa la sheegaa in asal ahaan ay ka soo jeedaan gobolka Rajasthan ee waqooyiga dalka India. boqolaal sano ka hor ayay halkaasi ka soo hayaameen iyaga oo badankood saldhigtay wadamada dhaca bariga Yurub sida Romania iyo Bulgaria. hadda wadan kasta oo Yurub ka tirsan ayaa laga heli karaa qof bulshadaasi ka tirsan. They call them Roma people. waxa loogu yeeraa bulshada Roma. dadkan sidoo kale qaarkood waxa ay ku nool yihiin wadamada bariga dhexe. bulshada Roma waxa ay leeyihiin sumcad aad u liidata. waa dad dulman. qofna ma dhexgala iyaga, sababtoo ah iyagaba ma dhexgalaan bulshooyinka kale ee dalka ku nool. dadku aad ay uga baqaan. dhaqamada iyo caadooyinka ay leeyihiin waa kuwa aan la jaan qaadaynin habnololeedka bulshooyinka kale ee ay la soo degeen. halkan waa dalka Bulgaria oo caasimadiisu ay tahay Sofia. wadankan hadda waxa uu ka tirsan yahay midowga Yurub, laakiin kal hore waxa uu ka mid ahaa wadamadii ku jiray midowgii Sofiyeed ka hor intii uusan midowgaasi burburin. tan iyo waqtigaasi waxa aad moodaa in waqtigu uu halkaasi ku istaagay. yacni wax kasta waxa ay weli u muuqdaan una shaqaynayaan sidii ay xilligaas ahaan jireen. ma jiro horumar la taaban karo iyo isbedel macno leh oo uu dalku ku tallaabsaday. dhismayaasha, wadooyinka, adeegyada gaadiidka, wax walba waxa ay weli u muuqdaan sidii ay ahaayeen waagii Sofiyeedka. wax isbedelay ma jiraan. magaalada caasimadda ah ee Sofia waxayba u eg tahay magaalada Moscow oo yar, xilliguna uu yahay 1960kii ka hor. haddaba waa sidee nolosha iyo dhaqanka bulshadan Gajarka lagu naanayso ee ku nool dalka noloshiisu ay heerkaasi tahay. waxay ku nool yihiin xaafado isku raran ah. iyaga ayaa iska dhistay dhulka iyada oo dawladdu aysan wax fasax ah siinin. hab qorshaysanna aan dhismooyinka loo nidaaminin. They find the land and they start dhulka building ay house arkeen in the kadibna waa new iska community. dhistaan. iyaga iyo shacabka Bulgaariyiinta isma jecla. waa dad ka faquuqan bulshooyinka intooda kale sababo la xiriira hab dhaqankooda aan hagaagsanayn dartiis. waxa ay isdabamariyaan biilasha korontada iyo biyaha. ma bixiyaan lacagaha canshuuraha ah. xaafadaha ay ku nool yihiin waa meel nadaafad ahaan aad u liidata. falal dambiyeedyadu ay ku badan yihiin nidaam xumo iyo nolol bila ixtiraam ah. waxa lagu eedeeyaa in ay badankood mashaqaystayaal yihiin, jecelna nolol ahaan in ay dadka kale ku tiirsanaadaan, ha noqoto in ay dawarsadaan ama ay wax soo dhacaan. xitaa haddii ay shaqo raadsadaan, cidna kuma kalsoona in ay shaqaalaysiiso, maxaa yeelay waa dad shaqada seegseegka ah. waxa ay haystaan dhalashada Bulgaria, waxay leeyihiin xaqa muwaadinimo. marka la gaaro waqtiga doorashada, codaynta waxa ay la siman yihiin muwaadiniinta kale. laakiin waxa ay dhibaato ka taagan tahay waa bulsho codkoodii iibsada, sababtoo ah waxa ay u diyaarsan yihiin wax isdabamarinta. Some of them they're very good musicians. qaarkood waa dad wanaagsan, waxa ay hibo u leeyihiin garaacista musiga. markii ay Bulgaria ku biirtay midowga Yurub, wadamada kale ee Yurub waxa ay u fureen xuduudaha. taas darteed bulshada Roma waxa ay u kala socdaaleen Yurub inteeda kale. kuwaasi waa bulshada Roma ee aan warbixintan uga hadlayno. hadda maxay tahay arinta ku saabsan in gabdhaha suuqa la geeyo oo ragga laga soo iibiyo? The price depends on the guy who is trying to buy the qiimaha gabdhaha la iibinayo waxa ay ku xiran tahay ninka gabadha iibsanaya sida ay u qanciso.
gabdhaha sanadkiiba mar ayaa suuqa loo iibgeeyaa halkaas waxaa yimaada wiilal isla qabiilka ka tirsan oo guurdoon ah sidaas ayaa wiil kasta oo lacag haysta uu ku iibsadaa gabadhii uu muuqaalkeedu soo jiito 10, 20,000. qiimaha waxa uu u dhaxayn karaa 10,000 ilaa 20,000 oo dollar. kalaaji waa qabiil ka tirsan bulshada Roma gabdhahooda waxaa guursada wiilasha qabiilka ka tirsan oo kaliya guurkaasi laftigiisa waa in suuqa lagu kala baxo oo halkaas uu wiilku gabadha ka soo guursado gabadhu inta aysan aadin suuqa lagu iibinayo ka hor waa ay isdiyaarinaysaa labis make up iyo udug intaba ayada oo dhan kasta ka diyaarsan ayaa suuqa la geynayaa gabadhan 4 sano ayaa suuqa la geynayay mana soo helin nin iibsada sanadkan ayay rajaynaysaa in ay soo hesho nin iibsada kadibna guursada Maybe I will find my husband. waxaa suurtagal ah inaan soo helo ninkayga mar kasta oo ay gabadhu tahay mid midab ahaan cad weji iyo jir qurxoon leh waa mar kasta oo ay sahlan tahay in ay nin soo hesho sidoo kale waxaa qasab ah in ay gabadhu weli bikra tahay da ahaanna ay weli yar tahay haddii kale ma jirto nin raba gabar da ahaan weyn ama aan bikro ahayn wiilashu marka ay suuqa yimaadaan aad ay u labisan yihiin xitaa waxa ay soo xirtaan dahab jijin faraanti iyo katiinad dahab ah sababtoo ah mar kasta oo gabadha laftigeed ay wiilka ka hesho waxaa wiilka looga iibinayaa qiimo raqiis ah sidaasna wiilka waxaa u soo haraya lacag badan oo ka bixi lahayd gabdhaha halkan jooga weli badankood ima cajabin suuqan gabdhaha waxaa loogu iibiyaa sida badeeco soo dhacayay ah oo kale waa sababta ay warbaahinta Yurub mar kasta dokumentariyo uga diyaariyaan ayaga oo isweydiiya sidee Yurub dhexdeeda gabdho loogu iibin karaa intaas ayaynu ku soo koobaynaa warbixintan tan iyo warbixinta xigta oo aanu soo diyaarin doono sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah